الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمان ولا لها ميل كستا أو أي كلا السعودان أما أي وركان كدقي سنيان إلهي سبحانه وتعالى وحن كبر ياين وكلن كأن كدي وكلن بركيسن إلهي سبحانه وتعالى إلهي سبحانه وتعالى وخير كنا وافجيه كلمة حقنا إلهي سبحانه وتعالى وحن كبر يا عربك قلبك وكسبه دقيه إننا إلهي سبحانه وتعالى أفر نجنا دقوه هذا الكدقي استكيس ونكسن الرعاة عاوة شاكدو وحوي حالة دلك كتاجن إيوه محاتلة حالة طبعا أدق دولكي وضن كني أما دل كني كتاجن وحاجة شرعية دا إيو حاجة أوضاع دي سعودي أيامهم بقى وشعبك يدتكم بقى إنه داونيني لما أنتم بقى ودورشدي اللي اسكوها يستي دور كان بلاد إلى لح بلاد هذا شركة السعودي شركة دعية دولة الدحاء إيو معمول قبل هذا وإحنا تجاهنا أنكسر دمان هبيراته سيدي مرر بدن بقى يعني كدرسين horta midda u horeysa qodobka u horeysa waxaan jeclahay dhowr qodob oo hordhacana inaan sheego kadibna dhowr qodob oo talooyin ah aan soo jeediyo ummadda naseex u ah gaar ahaanna golaha shacabka ku wajahan ama baarlamaanka federaalka ee ummadda Soomaaliyeed ee dalka Soomaaliyeed wallahi soo hada sharciyada idan طبعا oo sareysa oo sharci dejinta iyo dalka masiirkiisa waxyaalaha ku saabsan iyagu mas'uulka ah oo loo xil saaray una dhaartay labadiisa aqalba marka la isku daro labadaas qaybood buu warkaygu noqonayaa midda hore waa hordhacaya awalan horta annaga dad muslimiin aan nahay عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم waxaa laga yaabaa waxyaalaha aan sharaysanayno ama dib u arkayno marar badan inay noqoto wax khayr ummadda u ah ama dadka muslimiinta u ah marka wax walba lama sharaysto waa sax weeye dib baan dareemaynaa waxaan dareemaynaa firaaq inaan ku soo dhacnay iyo meel waqti badan inuu dhumay fursado badan ay dhumeen laakiin ilaahay baa subxaanahu wa tacaala xikmadeeda garanaya taas waa qodobka labaad waxa weeye maanta waxaan dhageysanaynay khudbadihii la isdhaafsanayay ayaamahanba intuu socotay madaxweynuhu golaha shacabka ayuu ka jeediyey khudbad taqriiban nus saac ku dhow mise dhowr iyo 20 daqiiqo warbixin lagu tilmaamay laakiin xaqiiqatan wax hadda cusub oo maaragtay aynu sheegno oo niraahno warkaas waa cusub yahay kuma jirin oo ummadda waji u bixin karta ummadda meel u saari karta madaxweynaha warkiisu wuxuu ahaa warbixin iyo eedayn fashilka shirarkii iyo wadahadalkii iyo doorashadii inay ka timi maamul goboleedyada qaarkood dhankooda maamul goboleedyada qaarkood rag guddoomiyaasha ka ah ama madaxweynayaasha angeliyo bayna qowseyne way hadleen oo iyaguna eedda waxay saareen madaxweynaha marka is-eedayn baa meeshii ka soo baxday aan haba yaraate ee shacabka Soomaaliyeed iyo dalka Soomaaliyeed wax uu ka faa'iideysanaya haba yaraate aanay jirin yani is-eedaynta caruurta talaawun waa la is-eedaynaya is-eedayntu waxba ma tarto waxna xalna ma soo kordhiso dhinac kastay ka timaado maxaa dhacay haddii dhibaatadii dhacayso oo ummadii ku dhacayso oo dalkii ku dhacayso oo dadkii ku dhacayso is-eedayntu maxay faa'iideynaysaa wax faa'iideynayso haba yaraatee ma laha xal baa loo baahan yahay is-eedayn ma aha waxa dadku ay sugayaan ama shacabku sugayaan golaha shacabka laftigooda waqtigooda ugu dhamaaday oo xaaladaas aynu haysanaa laakiin xoogaa ilaa golo kale ka imaanayo ayay u xoqxoqdeen kulley sharciyad baan filayaa guddoomiyaasha gobolada ama madaxweynayaasha gobolada oo iyaguna eedaynaya dowladda dhexe isku dhigan yihiin qaarkood muddo yani khilaafkoodu socday
ama waxaaba dhihi karaa dhowrkii sanaba in badan oo ka mida khilaafaadkaas ay ku dhammaatay iyo isqabqabsigaas ya kan rid kan nasaar kan siib kan nasaar kan bixi kan reeb kan qaad heer ay soo gaarto in dee la kala dambayntiiba la kala garan kari waayo maaragtay xaaladdu sida ay tahay taasuna waa dhib kaleeto oo hadda taagan waxaa iyaguna halkan soo taagan murashaxiin tirada ka batay oo quudaraynaya jagadaas sare oo madaxweynenimada Soomaaliya oo nin walba hunguri kaga jiro dhib ma laha hungurigu qof kasta waa geli karaa laakiin Soomaaliya si gaar ah yaab u leedahay oo taariikhda lama xusuusto waxyaalo badan lama xiisayo oraa waxaan ugu weeri qof kasta oo iska hunguriyeen karaa laakiin adduunka waxa kala saara waxa way codka dadka ayaa kala saara oo dadka ayaa doorta qofkii ay isleeyihiin qofkaasu isaga yani u qalmi kara inuu nagu hogaamiyo waxa himilooyin iyo rajo iyo riyo aanu qabno shacabka marka iyaguna halkan ay taagan yihiin waxay leeyihiin maaragtay waxay quudaraynayaan qaar madaxweynayaashii hore ka mid ah oo horey loo soo arkay waxay yihiin ku noqon maayo hadda xaalad waxaa taagan geeska ay ka fiirsanayso ama sheeda ka fiirinayso beesha lixaad qolada lagu tilmaamay ama beesha caalamka oo marna kuwan saarta marna qoladan saarta marna xaggan saarta oo yani aad moodo inay dhexda ka fiir usha dhexda ka hayso ciidamo ajnabi waa wadankii weli jooga dhinac dagaaladii iyo xasuuqii baa ka socdo oo qaraxyadii iyo maaragtay ayaa kooxihii la dagaalamayay dowladda ay wadaan waxyaalahaas oo dhan xaaladaas baynu caawa taaganahay madaxweynihii xilkii caawa uu ka sii dhamaanayo 4 sanadood 8 February 2017 waxay ku eg tahay 7 February sida warqadii baarlamaanku waga soo saaray ku cad 7 February waa berrito maalinta berri ah marka 7 February 2020 xilkii ku dhamaaday iyadoo maanta aanay taagnayn madaxweynihii xilkiisu dhamaaday aanu lahayn awood ama lagu jeclaado ama lagaga boqo midna aanu meeshii kaga tegay waayo xukunka ama dadka adduunka waxa madax loogu sameeyo ama waa la jecel yahay ama waa laga baqaa labadaas baa lagu wataa labadii midna maanta ma taagno oo waxaan taaganahay xaalad lays kaba leekaaday madaxweynihii qaranka Soomaaliyeed dowladda federaalka Soomaaliyeed gudoomiyihii gobolka madaxweynihii gobolka ay wixii iskaba leegyihiin oo isku si wada hadlayaan oo isku si isu eedaynayaan oo isku si maaragtay u ficiltamayaan oo isku si khilaafkoodii uga sheekeynayaan oo yani waana arrin yaab loo ayaan daraa maanta inaan halkaa taaganahay maxaa isu keenay madaxweyne qaran oo ummad dhan يعني himiladeeda iyo riyadeeda iyo xoogeedii iyo ay siisay oo u dhiibatay amaanada isaga u dhiibatay qofka wadanka ay u dhiibataa ummadu waa hal qof waay qofkaas madaxweynaha waa hogaamiyaha koowaad isaga way qofkaas way qofka ummadu ay taqaana haddii wax wanaagsan ka yimaadaan meeshaas isaga u sababa haddii wax umi ka yimaadaanna adeed ugu badan isaga qaada qofka madaxda ah sidaan marar badan aan sheegnay ma aha inaan qof kaliya wax walba aan saarayo laakiin markii la isku soo duuduubo hal qof baa qaada oo ah qofka hogaamiyaha leaderka ama madaxa qofka hadday tahay dal hadday tahay qoys hadday tahay shirkad hatta qoyska qofka madaxda ninka ayaa qoyska madax ka ah gabadha eedadii waxaanay samaysay nihaayad marka la isu yimaado aakhirka ninka odaga guriga ka abay ka soo go'aysa hawsh oo gacanta suldada iyo maaragtay masiirka reerka uu ka go'o marka u dambaysa marka caawa waxaan taaganahay meel xaaladdu halkaas ay tahay ummadda waxa ayaan darro ah yani saan sheegay in la isleekaado waa ayaan darro oo madaxweynihii iyo gudoomiyaha goboleeyaalka ay isleekaadaan oo isgaarto warkooda waxa kaleeto ayaan daraa in dantii ummadda Soomaaliyeed dal iyo dad oo waxay qabsan lahayd ama waxbarasho ha noqoto ama caafimaad ha noqoto
ama infrastructure iyo wax loo qabto oo ay saboolnimada kaga baxdo wax soo saar ha noqoto ama gacan shisheeye oo ay ka maaranto ha noqoto ama yani ciidan ay yeelato oo xoog leh oo dalka nabadgelyadiisa iyo ammaankiisa hanta oo ka sifeeya kooxaha rabshadaha iyo carqalaynta iyo nabad la-aanta ku wada ha noqoto midna inayan ummadii maanta midna gacan ku hayn oo gacandhaba yani waxaan ka hadlaynaa wax waa ka jirjiraan mid walba wax waa ka bilaaban yihiin laakiin wixii ummaddu ay ku naaloon lahayd oo adduunka ay kala qaybgeli lahayd ayan maanta ku hayn oo ay ka lunto fursadahaasu iyadoo lagu dirirayo xildhibaanada laga soo dooranayo magaalo heblaayo maya anaa qaadanayo iyo anaa amrahay iyo anaa maaragtay noqonayaan iyo anay dadkay noqonayaan in sanad kaamila uu ummadda kaga lumo maxaa ka khuseeya ummadda maxaa ka khuseeya maxay faa'iida ka helaysaa haddii madaxweynaha qaranka iyo madaxweyne goboleed ama maamul goboleed ama guddoomiye gobol ay isku qabsadaan tuulo hebel iyo magaalo hebel iyo magaalo hebel iyo magaalo hebel arrintuna u baaba'do waqtiguna u dhammaado ummaddana waqtigeeda u lumo maslaxadeedana ay lunto danteedana ay lunto maxaa nooga kadhiisha annaga shacab ahaan haddaan nahay shacabka soomaaliya maxaa nooga kadhi maxaan ka faa'iidaysanaynaa maxaan ka guranaynaa miro sow annagu dadka aakhirka khasaaraya ma nihin waxaasu marka waa ayaan daro inay taagnaato dadkii loo igmaday ee mas-uulka looga dhigay baana mas-uulka ah inay waxaasu dhacaan waxaa maanta xaaladdu ay marka taagan tahay meel runtii la dhihi karo waa taariikh baa samaysmaysa ilaahay waxaan ka baryaynaa inuu ummadda ilaahay subxaanahu watacaala jid uga bixiyo khayr uga bixiyo laakiin haddii la fiiriyo yani xalka maxaa noqon kara maxaa tala yani hadda noqon kara oo lagu dhaqaaqi karaa anu runtii waxaan hadalkan u jeedinayaa ummadda soomaaliyeed guud ahaan gaar ahaanna waxaan la hadlayaa xildhibaanada golaha shacabka baarlamaanka soomaaliya laba aqal buu dabcan ka kooban yahay laakiin guud ahaan waxaa horeeya golaha shacabka iyo golaha senatorska oo aqalka sare ah golaha shacabku yani sida dastuurku dhigaa iyagaa sharci dejintii ah xataa haddii yani xilka madaxweynuhu sida dastuurku ama dalal badanba ay qabto haddii uu yani bannaanaado booskiisu waxaa qabta xilka guddoomiyaha baarlamaanka ama golaha shuurada ama golaha shacabka ama golaha siday ku magacaabaan dal walba sida la yiraahdo ma garata kongareskooda ama barlamaankooda marka baarlamaanka iyo guddoomiyihiisu waxay noqdaan suldada ama awoodda dalkaas uu ku badbaado inta laga baxayo xaaladda kala guurka ama xaaladda degdega ah ee maaragtay dalku u galo firaaqada ah si aanay dalkii maslaxadiisii iyo nabadgelyadiisii iyo howlihiisii iyo golayaashii fulinta iyo cabinetkii iyo xukuumaddii wax fulinaysay aanay meel cidlaa ugu soo dhicin marka si gaara waxaan warka ugu jeedinayaa ama naseexada xildhibaanada golaha shacabka marar badan bay wax kastaba ha lagu eedayo waxaan ka mid ahay dadka aad u yani maaragtay u dhaliila oo shaqooyinkooda saad ogtihiin waxyaalo badan kusoo dhaliilay ama ha noqoto qaybo badan oo maaragtay doorashooyinka musuq maasuqa soo gala ama maaragtay gaabiska xagga maaragtay la xisaabtanka dowladda iyo xukuumadda iyo wasiirada ama ha noqoto ansixinta waxyaalo badan oo sharciyaada maaragtay marar badan baan maaragtay dhaliil usoo jeediyay laakiin marar badanna way leeyihiin dad badan oo maaragtay wanaagsan oo khayr aan ku tuumeynana way ku jiraan marka iyaga kow horta arrinka aan maanta warka u jeedina nin kasta iyo gabar kasta oo xildhibaan ah weeye hadalkan wuxuu ku socdo guud ahaan gaar ahaanna guddoonkiisa oo ugu horeeyo guddoomiyaha golaha shacabka maxamed mursal waxaan isleeyahay maanta xaaladan la kala aamin baxay gobolladii iyo madaxweynihii siday isu qabsadeen sida ay u kala eed sheeganayaan mid meel khudbado isku mid oo iska soo horjeeda loo jeedinaya la kala aamin baxay murashaxiinta iyo mucaaradadii iyo dowladda xeerkeedu meeshuu kala taagan yahay aan ognahay kala shakiyadaas badan oo dhan waxya maanta taladu xoogaa ku urursan tahay baad moodaa golaha shacabka iyo ummadda soomaaliyeed oo yani iyadu hadda daawanaysa oo aan awood doorasho ama awood cod
mar hore laga xayuubiyey ama loo diiday waxaan dhihi lahaa golaha shacabku waa inay horta taladan la wareegaan masiirkeeda maanta maadaama iyaga taladoodu socoto dalkiina ay badbaadiyaan maanta waa runtii fursad taariikh ah baa hortaala isqabqabsigan iyo isku jiidkan iyo isku diidmadan wax badan oo dhibaatooyina baa ka dhici kara ilaahay subxaanahu watacaala ma qadaro haddii maaragtay sidaas la isugu garbiyo waqti badan ayaa jiray oo dowladdu haysatay runtii 4 sano in wax kala cadaadaan oo awoodda dowladdana halkaa marto dadka shacabkaana qaanuun iyo nidaam iyadoo lagu dhaqmaayo iyo dastuur halkaa ay kala maraan madax iyo ummaddu waa inay u kala baxdaa ma jiraan wax iswada leegar bas siman oo adduunku ku socdaa ma jirto haba yaraata fursadaas waa tagtay yaa lumiyey warkeeda iyo xisaabtankeeda hadda waxay ila tahay wax macnaha weyn inaanay samaynayn laakiin way dhamaatay madaxweynahana waqtigaasu hadduu wax qaban karay ama wax qaban lahaa waqtigaasu wuu soo dhamaaday wuu ka soo dhamaaday marka waxaa wanaagsan inaanu wax kaleeto oo dhib ah ama keeni kara dhibaatooyin kale inaan maaragtay aanu ku dhaqaaqin ayay aad iyo aad ugu fiican tahay sidii wanaagsanayd oo uu ku yimi ummadda taariikh fiican uu ku yeesho oo si wanaagsan oo nabadgelyo ah oo maaragtay maamuus leh oo xilkasnimo leh oo maaragtay nabadgelyo leh oo dalka iyo dadka maslaxad u ah inuu maaragtay waxa fiican taariikhda uu ku galo mar kaleeto markaa hadduu doono isu soo sharixi karaa oo maaragtay uu geli karaa waqti laga yaabo waqtigaa inuu ka wanaagsan yahay golaha shacabka marka iyaga ayaa maanta taladu ku urursan tahay taariikh baana hortaalla waxaan dhihi lahaa inay codkooda iyo mas-uuliyaddooda ay qaataan una ugu horeeyo guddoomiyaha maxamed sheekh mursal oo isaga sida aan sheegnay xilku ku wareegi karo lacalla haddiiba ay bannaanaato sabab la-aan xilka jagada u sarreysa ay dhimaato arrinka labaad oo taladu markaa noqon kartaa waxa weeye dee golaha shacabku wuxuu talada la wareegi karaa waa muddo kooban oo cayiman 3 bilood bay noqon kartaa 6 bilood bay noqon kartaa sanad bay noqon kartaa wixii golahu ay maaragtay ku heshiiyaan muddadaas ay u codayaan golahu waa in xukuumad caretaker ah ama xukuumaddu shaqooyinkeedii sii wado dalku si aanu khalkhal iyo waxba u gelin shaqadii loo igmado inay sii wado kadibna loo diyaariyo oo xukuumaddaas ay diyaariso doorashadii inay dhacdo si markaa transitionka ama isbeddelku uu u yimaado si qaanuuniya oo nidaamsan oo xildhibaanadii cusbaa yimaadaan haddii kuwan qaarkood la soo celiyo iyo haddii kuwa kale doorashadii loo galo kadibna madaxweynihii sida lagu doorto rasmiga ahaa dalkuna uu sidaas nabadgeliyo iyo si tartiib ah uu ku kala badbaado oo nabad ah iyadoo aan waxba hadda la dhaqdhaqaajin waayo dee fitnada iyo isqabqabsiga iyo waxa ka dhici kara dhibaatooyin aan la mahadin baa ka dhici kara ama ha noqoto heerka qaranka ama ha noqoto heerka gobolada marka maslaxadda iyo nabadgelyada iyo ummadan fursadaheedii wax badan laga lumiyey 20 sano yani maaragtay fursadaha laga lumiyey wax badan loo qaban kari lahaa oo laga bedeli kari lahaa madaxweynayaashii u dambeeyey oo madaxweynahan hadda xilkiisu dhammaaday uu u dambeeyey aan isleeyahay anigu yani taqdiirkayga way ku fashilmeen hogaamintaas welina soomaalidu waxay sugaysaa يعني رادنيسا إلهي سبحانه وتعالى هكينه هجاميه يعني سبب النقل لها إن يكبحضه يعني ولا هوجن أي كجرتو كلا يعن أي كجرتو خلاف كان أي كجرتو كلا تجا ومدو كجر يسكيني لها هرمر وهرسيدي لها نبتقليدا سوقي لها كوحها دقالما إيو جبهدها إيو وحيالها ماركتي قسكا إيو لبكا سمينيا كنظيفين لها ومد أودي أدو أديكسر لها إنو هلمل أجيديو ولي ويسوقيسا ومد لعل إنو إلهي سبحانه وتعالى أصو صارو إن شاء الله تعالى سيدا الرجينين marka inta taa laga gaarayo xal rabaa inaan fitno iyo dagaal horle iyo isqabqabsi horle iyo waxaas umada aanay u horseedin marka golaha shacabku maanta ama xildhibaanadu maanta mas'uuliyad baa idin hortaala taariikh baad ku gali kartaan
haddii aad sidii horeeto aad wax u dhabqin jirteen u dhabqisaana taariikh xun bay noqonaysaa. marka anigu waxaan dhihi lahaa qof kasta codkiisa iyo maaragtay matalaadiisa ummadda maanta ha ugu khidmeeyo, hal mar ummadda ha ugu daneeyo, oo dalka ha ugu daneeyo, oo ummadda mustaqbalkeeda ha ugu daneeyo. mustaqbalka ummaddan iyo taladeeda waa in iyada ay usoo noqoto, taasuna waxay ku dhici kartaa doorasho dhab ah oo maaragtay matalaadeeda rasmiga ah leh, oo daah furan, oo dadku iyagu madaxdooda iyo dadka matalaya ay doortaan, xildhibaanadoodii soo doortaan, kadibna madaxweynahoodii ay doortaan. sidaas dalku ayuu dadku taladii wax ku yeelan karaa. waxaan kaloo usoo jeedinayaa golaha shacabku haddii ay maanta go-aanka taariikhigaaba qaataan, doorashada waqti fudud waa lagu qaban karaa. waxaan filayaa guddigii hore ee doorashada ee muddada dhan khibradda u leh, shaqadana soo waday, ee guddigii ay madaxda u ahayd gabadhi walaasheen ahayd Xaliime Yari, oo guddi hadda cid qaylo ka keentay ama yabaq ka keentay aanay jirin markii hore intaan ka ogeyn. isagaa loo igman karaa inuu marka doorashadaas qabto, doorashadan hadda inuu guddigii qabto, ama guddi kale oo baarlamaanku marka uu xil saarto waa heli karaa, oo la isla waafaqsan yahay, oo la isla ogol yahay. marka in guddoonka baarlamaanka ama guddoomiye Maxamed Mursal taladii maanta gacantiisa wax badan baa taariikh ah bay ummaddu ka daawanaysaa. golaha shacabka iyo xildhibaanada ummaddu maanta waxbay ka eegaysaa, bal meeshay ka istaagaan. wixii hore waxaan isdhihi lahaa wixii hore kafaaro gud bayba u noqon kartaa haddii ay maaragtay sameeyaan tallaabo wanaagsan oo ummadda iyo dalka iyo dadka badbaadin karta, inay taladii iyagu maanta gacanta ku qabtaan. guddi doorasho ama guddigii hore ee doorashada ila isla waafaqsanaa ay doorashadii qabtaan, muddo kooban loo qabto oo markaa dalkii doorasho laga hirgeliyo, kadibna shacabku iyo ummaddu ay sidaa ku doorato. ama heshiisyadii hore oo doorashada oo lagu heshiiyey, heshiiska lagu ahaa ee axsaabta iyo maaragtay matalaada xoogaa xataa la kordhinayay, ha la qaato. yani modelkii la qaataba in markaa guddiga doorashadu uu sidaa ku fuliyo. baarlamaanku maanta isagaa maanta suldada jirta ee noqonaya. waxaa kaleeto oo arrintaas iyadana fariina u tahay murashaxiinta jagada madaxweynaha u dareynaya, iyagana waxay noqon kartaa arrin raali geliso oo doorasho haddii la qabanayo dee nin walbow yani ceesaantaada ceelka keen weeye. markaa dadku ha kala doortaan madaxweynihii hore ama madaxweynaha xilku ka dhammaaday, cid walba way ka qaybgeli kartaa. dadkaana maaragtay codkooda ku kala saaraya oo ummadaasu ciddii ay u aragto inay talada u qaban karto, dee dadkoo dhammi raalli bay ku noqonayaan oo waa laga dambaynaya, waana loo aqoonsanaya. qofkii aan cod helinna dee maaragtay doorkiisa ha sugo ama mar kaleeto ha soo balajbatay. sidoo kale waxay arrintaas u noqon kartaa oo aan rajaynayaa faragelinta shisheeye inay yarayso, oo inagu taladii dalkeenna aynu lahaano oo can ariiqi baarlamaanka ama golaha dhexe oo iyagu ah yani maaragtay suldada sharciga dejinaysa ee u sarreysa meesha ee madaxweynaha dooranaysa, shacabka xaggiisa inay ka timi yani ama shacabku u doortay asalku u yahay, in ay faragelintii markaa yarayso oo ha noqoto yani dowladaha doonaya inay laaluushaan doorashada, ama ha noqoto dowladaha doonaya inay gacan ku yeeshaan. waxaasoo dhanna waxay u noqon kartaa arrin hor istaagta bay u noqon kartaa. markaan isku soo duduubno waxaan dhihi karaa warka nuxurkiisu waxa weeye ilaahay waxaan ka baryayaa inuu ummadda ilaahay subxaanahu watacaala tawfiiq iyo islaax iyo heshiis ilaahay subxaanahu watacaala u waafajiyo, talada toosanna ilaahay subxaanahu watacaala ku toosiyo. waxaan warkayga kusoo gunaanadayaa waxa weeye warka nuxurkiisii ummaddan fursado badan baa ka lumay, oo dalkaanu wax badan baana faahfaahinay. madaxdii hore oo madaxweynahanu hadda u dambeeyey fursaday ummaddu siisay, mid walba 4 sano oo qaatay. 4 sanona wax ummadii qanciya oo maanta uu uga tago oo la taaban karo way yar tahay. dadku wax way sheegi karaan, waxyaalana waa la sheegayaa, laakiin wax la taaban karo maanta jidkii 30 kilomitir ahaabaha ugu yaraade baan maanta dhammaystirnayn. iska dhaaf jidad kumanyaal ah, iska dhaaf wadooyin magaalooyinka isku xira 40 magaalo ama 20 magaalo. يعني هذا مثلا dalkan Turkiga marka ay faanayo waxay oranayaan dalkan waxa isku xirnaa waagi aanu iimaneynay annaga
toban magaalo hadda waxaa isku xiran 50 magaalo oo wadooyinku ay wada gaarayaan oo hawiyadu wax la taaban karo way hal cisbitaal baa oo maartay wadnaha ah 100 cisbitaal baan u dhisay hal airport baa jiray 50 airport baan u dhisay hal maartay warshad baa jirtay 50 warshadood baan u dhisay hal shacabka dakhligiisu intaasuu ahaa muwaadinka maanta halkaasuu maraya nabadgelyada halkaasay maraysay qaraxyadu waxaasay dhacayeen maanta magaalada sidii aad doontaa u mari kartaa yani waxyaalo la taaban karo waxaas weeye marka taasna ma dhicin madaxweynihii hadda xilku ka dhamaaday baanay ka dhicin madaxweynihii ka horreeyey baanay ka dhicin madaxweynihii kasii horreeyey baanay ka dhicin raalli ha ahaadaan dhammaantood raalli ha ka ahaadaan ummadda yani ummaddan fursado badanaa ka lumay waqti badanna waa ka lumay ma sii qaadi karto wax kasii badan waxaan leeyahay baarlamaanku maanta taariikh baa idin hortaalla taariikhdaas xildhibaanow ilaahay subxaanahu watacaala yowma alqiyaama maalinta aad hor istaagaysaan ku fekera oo uu idin weydiinayo ummaddii soomaaliyeed 15 milyan ama 20 milyan wallaahi alladii laa ilaaha gayruhu qof walba qoortaasay qabsanaysaa halkaasay ku dhigaysaa haddaadan rabin marka yowma alqiyaama gabar halkaa kaa lulata islaan halkaa kaa lulata qoorta ku haysata cunug yar agoon halkaa ku haysta ya culimo iyo caamo qoorta kugu dhegan ummad 20 milyan oo kugu dhegan maanta waxa weeye ummadaas idinka bacdallaahi wax badan laga yaabaa inaad badbaadin kartaan dadkii u dhaxeeya murashaxiintii hadda doonayay iyo mucaaradkii madaxweynihii xilku ka dhamaaday madaxweynayaashii hore oo mucaaradada ku jira gobolada iyo dowladda dhexe oo dirirsan waxaasoo dhan idinkaa maanta u dhaxeeya marka taladiina tala wanaagsan ilaahay subxaanahu watacaala ha idin waafajiyo waxaan dhihi lahaa in maanta taariikh aad qortaan oo ummadda soomaaliyeed aad ilaahay subxaanahu watacaala badbaado idinku soo dhiibo ayaan rajaynayaa ilaahayna tawfiiqdiisa hana waafajiyo ummaddaana ilaahay subxaanahu watacaala waxa khayrka u ah samata bixinta u ah ilaahay subxaanahu watacaala uu khayrkeeda adduunyo iyo aakhira uu ku jiro ayaan ilaahay ka baryayaa inuu waafajiyo ilaahay waxaan ka baryayaa inuu ilaahay subxaanahu watacaala ummaddan u waafajiyo waxa khayrka u ah adduunkeeda iyo aakhiradeeda kuwa ugu wanaagsan ee ugu khayr badanna ilaahay talada ugu dhiibo kuwa ashraarta ah iyo meesha taladeeda xun ay ku jirtana ilaahay subxaanahu watacaala uu ka xijaabo ilaahayna dhinac mariyo cadowgeeda gudo iyo dibadba ilaahay subxaanahu watacaala aan nolosha u ogolayn oo harka aan u ogolayn oo fadhiga aan u ogolayn inuu ilaahay subxaanahu watacaala ka qabto gudo iyo dibad meel uu joogaba wixii ummadda Soomaaliyeed dib ku ah ilaahay subxaanahu watacaala ha ka qabto ilaahay subxaanahu watacaala ha ka xijaabo ilaahay subxaanahu watacaala waxaan ka baryayaa waxa khayrka u ah iyo cidda khayrka u ah iyo hogaamiyaha khayrka u ah inuu ilaahay subxaanahu watacaala waafajiyo ayaan ilaahay subxaanahu watacaala uga baryayaa ilaahay nabadgeliyo iyo barwaaqo iyo deganaan iyo xasilooni iyo رزق واسعة إنه إلهي سبحانه وتعالى دول كوضا كسيو أيان إلهي سبحانه وتعالى وقبريا شتات كوضنا إلهي سبحانه وتعالى إسوسو أوروريو قلوب كوضنا إلهي سبحانه وتعالى إسوسو جيدو كلمة دودنا إلهي سبحانه وتعالى أمي ذيو دول كوضنا برواقو إي خير إي نبتكري إلهي سبحانه وتعالى وقدقوا آمين صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين